munaasabadan oo ahayd mid lagu sii sabootiyay ardayda sanadkani ka baxday fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe Al-Khaliij isla markaasna abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda dugsigaasi ayaa maanta waxa xalfad ballaaran lagu qabtay hotelka Diamond ee magaalada Berbera waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil waalidiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Al-Khaliij Ismaaciil Cabdillaahi Cilmi Ismaaciil Deeg waxaanu ka waramay ujeedada munaasabadani iyo higsiga dugsigani maanta xalfadeedu waxay daaran tahay waa sidaynu boorka ku cadayday waa sabootinta ardaydii inoo qalin jirisay sanadan aynu ku jirnay ee dugsiyeedkan 2019 oo aynu weli ku guda jirno ardaydana aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo waa dadaasheen waqti dheer baa gelisay si aad guul gaari lahaydeen waana si gaar baan u hambalyeynaya waxa iyadana inuu xigi doonto aynaan ilaawi doonin ardaydii kaalmaha kala duwan ka gashay sida dugsiyeedka iyaguna kaalmaha kala duwan ka galay ardayda fasalada 3aad 4aad ilaa 8aad iyagana maanta waan ku abaalmarin doonaa insha Allah ta'ala sidoo kale maanta iyagana waxaynu abaalmarin siin doonaa ardaydii iyaguna markaasi qaybteeda madrasada ee gelinka dambe ardaydii tartanada quraanka ee kariimka ay noo galay ee guulaha iyaguna ka soo hooyay iyagu waxa inta iyaduna inoo dheer guulaha aynu gaadhnay sida dugsiyeedka 2019 oo iyadana aynu xusayno inaynu soo saarnay arday ku baasay markaasi darajooyin sare kaalmahooda oo wanaagsanna ka galay degmada gudaheeda aad iyo aad baan hambalyeynaya waxaan dardaarayaa in ardayda lala dadaalo dadaalka lala gelayaana uu noqdo mid laga dhaadhicinayo aqoonta ay maanta baranayaan inay tahay arday noolaadaan mid berritooda iyaga anfacaysa qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay dugsigani ayaa iyaguna waxay halkaasi ku soo bandhigeen aqoonta ay dugsigani ka barteen geesta kale waalidiinta dhalay ardaydani ayaa waxay si weyn u bogaadiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga sidana bulshooy maqal wuxuu baabkeedu yahay Berbera waxa kaaga furan iskuulo wada bogo cilmiga laga soo barto caruuru beegsadan bartaasina waa Khaliij waxaan leeyahay maamulka iskuulka Al-Khaliij aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo waa dadaasheen waanu arkaynaa faqriga iyo dadaalkeedii ka muuqda sanadkii hore iyo sanadkan inta u dhaxaysa waxaan dareensanahay in iskuulka uu soo maray marxalado aad u kala duwan maantana heerku marayo waynu arkaynaa ardaydu waxbarashadooda halka himilada ay marayaan iyo barta ay ku jiraan maanta waynu aragnaa midhaha ay marayaan iyo halka ay marayaan aad iyo aad u fiican tahay waxaan ku dhiirigelinayaa ardaydana dadaalkooda inay halkaa ka sii laabaan bay aad iyo aad ugu dadaalaan waxbarashada balyo iyo bogaadin uga diraya maamulaha iskuulka Al-Khaliij Masar Ismaaciil iyo macallimiintii iyo ardayda quruxda badan ee ay soo saareen sanad walba ay soo saarayaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibraahim Digaale Maxamed ayaa waxa si weyn u bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta dugsigani waxaanu sheegay in iskarab taagi doonaan ka wasaarad ahaan dugsigani runtii farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu sagootinayo ardaydii hore ugu gudubtay iskuulka sanadkii 2018-2019 ee ka gudubtay imtixaanaadka shahaadka ee dugsiga dhexe runtii ardaydaasi ka wasaarad ahaan waxaanu ka markhaati kacaynaa inay kaalin wacabku gudbeen kaalin fiican ka gaadhay aad iyo aad waan ugu hambalyeynayaa maamulka iyo macallimiinta dugsigan Al-Khaliij iskuulka wuxuu ka mid yahay iskuullada ka hana qaaday degmada Berbera sida dhowna ula shaqeeya wasaaradda waxbarashada waxaana u ballan qaadaynaa wixii dambana ka wasaarad ahaan wixii anagu bacana ee aanu siin karno
inaan la shaqayn doono. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardayda dugsiga Al-Khaliij ee magaalada Berbera. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada Berbera.